dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee halka joogta iyo ardada u fariisanaysa imtixaanka ee shahaadiga ah ee sanadsiyeedkan dhammaantiin waa salaamantiin. runtii waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta ay tahay maalintii u horreysay laguna daahfurayo imtixaanada fasalada 12aad iyo 8aad ee Puntland oo ay nasiib u heshay in aan ka furno magaalada Gaalkacyo gaar ahaan iskuulka Cumar Samatar. runtii waxay tahay farxad gaar ah maadaama iskuulkan uu yahay iskuullada Puntland ugu caansan amaba aan filayo iskuulka Puntland secondary ugu horreeyay inuu yahay. marka wuxuu leeyahay astaan gaar ah iyo fursad gaar ah oo ardada dhigata Cumar Samatar ay maanta heleen. waan garan karaa muddadii lagu jiray COVID-19 inuu wax badan xanibay duruustii ardadu ay qaadan lahaayeen. waxaase sidoo kale ku faraxsanahay Puntland inay kaalinta koowaad ka gashay la tacaalidda ardadooda oo barnaamijka online-ka ah ama telefaaska ah ee sida tooska ah ardada uga qaadanayeen imtixaanaadka casharada ay ugu horreeyeen dhammaan dadka Soomaaliyeed. sida warbixinta aan ku helay xataa ardada Soomaaliyeed ee kiilka joogta fursadahan oo kale ma aysan helin markii ay waxaanu dhaceen. laakiin Puntland runtii wasaaradda dadaal badan bay muujisay. waxaana qirayaa aniga mustawaha tacliinta oo markii horeeto hadal igu ahaa laakiin ruuxadeeda marar badan baan fiiriyey macallimiinta casharada dhigaysa markuu online-ka ka baxayay. waxaa iiga muuqatay dabcan ama muqararka la dhiganaya ha ahaato ama macallimiinta iyo tayadooda ha ahaato waxaa iiga muuqatay mustawa aada u fiican oo runtiina farxad geliyey oo aan rajaynayo inay arrimahaasi noqdaan kuwo sii socda oo in badan oo ama ardaynimadii muddo hore ka baxdayna wuxuu u noqday muraajacaad
ama in badan oo fasalada soo socota ama iskuulaadka aan fursad u helinna waxay u noqotay aqoon dheeriya. mashruuc runtii wuxuu ahaa waktiga uu keenay laakiin faa'iidadiisu aada u badneyd. waxaan rajaynayaa ardada halka joogta inaysan waxba ku seegin muddadii iskuulka uu xirnaa, inay aada diyaar ugu yihiin in ay imtixaankaas ay si wanaagsan u galaan. waxaan u rajaynayaa dhammaantood guul dadaalkii ay soo qabteen. waxaan uga mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta iyo guddoonka gobolka mudug oo hadda sida la sheegay ku dhowaad 4,000 iyo ziyaada ay ka qayb galayso 29 xarumood oo gobolka mudug ku yaala. waxaan rajaynayaa muddada uu socdo inuu si habsami u socdo, in la ilaaliyo dhammaan anshaxa iyo habraacyada loogu talagalay imtixaankaas inay ku socdaan oo uusan ka imaanin wax dhib ah. waxa ugu horeeya oo la ilaalinayana inuu tahay social density, inta la isu jirayo iyo caafimaadka iyo maaragtay afxirashada wadaan. inkastoo puntland sida la sheegay uu hoos u dhacay, laakiin haddana xanuunkii weli waa jiraa. bulshaduna runtii inkastoo xaafadihii iyo meelihii aad joogtaan inta hadda aan ka arkayo dadku ay u qaateen inuu bahalkii dhammaaday, laakiin dhalinyaro yaryar baa tihiin idinku in aad aada u taxadirtaan, idinkana is ilaalisaan, bulshada aada la nooshihiin aad iska ilaalisaan markaad xaafadaha iyo dadka la macaamilaysaan, inta laga hubinayo in xanuunkaas uu ka baxay geyigeenna. aad baa u mahadsantihiin. waan ku faraxsanahay inaan igala soo qayb galay. guul baan iin rajaynayaa saaka haddii ilaah idmo iyo ayaamaha u socda imtixaanka. waa mahadsantihiin.